السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waa maalin kale, waa maalin farxadeed runtii waxaa si heer sare oo heer caalami ah loo soo dhaweeyay garsooraha heerka caalami Cumar Cabdiqaadir Cumar Carta oo runtii dalka dib ugu soo laabtay dhammaan ummadda Soomaaliyeedna ay u wada duceeyeen. Cumar waxaan ognahay in uu ka qayb galay finalkii CAF Champions League oo ahaa garsooraha loo soo xulay, garsooraha lagu aaminay. soo dhaweynta runtii aad loo soo dhaweeyay sidaad arkaysaan hoolka weyn ee xiriirka kubadda cagta. dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed, garsoorayaasha, shaqaalaha xiriirka, gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Mudane Cali Cabdi Maxamed Cali Shiino, Yaxya Maxamed Abuukar guddiga fulinta, Macala Abuukar Islaaw gudoomiyaha tartamada, gudoomiyaha Legionska, Xaaji Aadan, gudoomiyaasha kooxaha xiriirka kubadda cagta. soo dhaweyn kadib meesha waxaa ka wada hadleen rag badan, rugcadaa ah Cali Saciid oo ah gudoomiyaha garsoorayaasha ee Sakafa, isla markaas instructor Kafa xubin FIFA ah. waxaa ka hadlay gudoomiyaha garsoorayaasha, gudoomiyaha Olombikada gobolka Banaadir Aadan Xasan Aadan Yawarowish. saasoo kale waxaa ka hadlay gudoomiyaha kooxda MCC gudoomiyaha Abuukar oo runtii aad iyo aad u ammaaneen. ugu dambeyn uu ka hadlay Cumar iyo abaalmarinta uu guddoonsiiyey madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Cali Cabdi Maxamed. hadalladooda waxaa ka mid ahaa sharaf iyo karaamo. gudoomiyaha garsoorayaasha ahna gudoomiyaha isboortka gobolka Banaadir, dhammaan ciyaartooyda Legendska, Xaaji Aadan iyo tiimkiisa runtii mar walba la socdo sharaf weyn aan u hayno, waddigna u ah horumarka aan gaarno. macallimiinta iyo garsoorayaasha dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. saxaafadda sidoo kale dhalinyarada runtii xafladan soo qabanqaabisay ee xiriirka kubadda cagta. runtii maanta waxay noo tahay maalin weyn, mar walba oo laga hadla arrin garsoor waxay noo tahay maalin khaasa. waxaan horta ugu horeysa inaan u hambalyeeno wiilkeena walaalkeen Cumar oo runtii la geeyey booskii aan ka filaynay Soomaaliya. Soomaaliya keliya ma ahane zoonka keliya ma ahane CAF oo dhan dadka ay ku faanto. waxaan rabaa Xaaji Aadan wuxuu ka hadlay in dalka ay ka taabteen. runtii waxaan rabaa kooxaheena iyo hadda ka horna ay hadalkaas la xasuustaan iyo garsoorkeena dhammaantiin odayaasha macallimiinta la-aantiin marna hore ku gaargaarno. runtii safarkan safar dheer u ahaa, sahay badan u baahan, dhib badan ka soo marnay, shiddo badan laga soo maray. alxamdulilah rabbilcaalamiin weli wax loo dhiman yihiin, weli ma aynaan gaarin goyntii ugu dambeeyey. cayaaraha dhinac waxay ahayn 4 ciyaar. shirka marka aan lahayn guddiga garsoorka ee CAF, cayaarahan aan tibaynay halka cayaar oo keliya oo isku raacin waxay ciyaarta Cumar, ciyaarta ugu dambeysa oo finaalka in loo dhiibo hal qof oo guddiga xataa kala soo jeesa. waxaan intaas ku helnayna waxay tahay runtii sharafta iyo sumcadda ciyaarihii uu soo qabtay oo la fiiriyey sinferlorty si wuxuu wax ku yahay inuu qaato talada dhageystana dadkiisa. professional maalintaa noqotid waxaa u baahan tahay noloshaada inaad wada ka bedeshid, waxaa u baahan tahay inaad bedeshid qaabka u nooleed, waxaa u baahan tahay waxyaabo badan, factories fara badan. runtii Soomaaliya weligeed waxaa lagu ammaani jiray daacadnimada, integrity-ga. garsoorayaasheeda lama sheegin dacwo weli noogama imaanin. waxaa kaloo rabaa inaan idiin sheego inta la soo ciyaarayay Champions League 132 ciyaar la ciyaarta ugu dambeysa 132 qabtay. maalin aan dacwo loo imaanin male, maalin aan kooxaysan soo qoraynin xabasho ma jirto. ciyaarihii finaalka ugu dambeeya ciyaar kamid ah baa koleysaa ka dhacay, laakiin weli ma dhicin kiis Cumar inaan u fadhiisano guddiga garsoorka CAF ahaan, ma aysan dhicin. runtii saacad kasta daqiiqad kastana waa la soconay oo waxaan lahayn bush forward, hore u soco meeshaada ka sii wad. ugu dambeyntii waxaa laga yaabaa inaan ka hadalno World Cup in la aado, waxaan laga yaabaa inaan ka hadalno inaan fikiraan haysano. runtii wax fudud maaha, laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin
إلهي يدرس واحد رجينا إن يدرب كاس مثل من الرجوين كينو بالمبين الموضوع شرفنا أول مدة الصومالية بودهان كنا سوكوبي كركر بتاعت كلية كنا سوكوبي كركر سوق الصومالي كلية كنا سوكوبي كركر سوق كلية لكن إن شاء الله واحد رجينا وحياة الله رحمة الله واحد رجينا أنا رأوا بيننا كهذا الموسعان لكن واحد رجينا إن شاء الله تعالى تاني في البيان إلى أن تيسر بإذن الله ورئيس الشيخ وحرب أهل دعالينا وحرب أهل مستقبلنا وحرب أهل الصومالي إلى الدرجة إلى الله الضب كسورياش الصوماليين وده ما كان جروح ما نستشيره لكن زون كسورياش فعليين حتى التدخل جود بهذا السكول اسمه الفيديو نكن لو لو بتري وحبي من عيال أمي ولا ضد كايتو وأنا كل يرني وأنا كسر بحرمانتي ما كان كسورة